Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ilaa maanta la joogo waxaa jira waxyaabo qarsoon, hal xiraalayaal oo ay xalin kari waayeen aqoon-yahanada ku takhasusay baaritaanka raadadkii dadkii hore iyo ilbaxnimadoodii. Waxaana ka mid ah godadka Taasili ee ku yaala saxaraha dalka Aljeeriya ama Jazaa'ir. Godad la yaab leh oo ku yaala xuduudda Liibiya iyo Aljeeriya, misna uu rumaysan kari waayey qof kasta oo arkay. Waxaa taariikhdoodii lagu qiyaasay kumanaan sano ka hor. Godadkan waxaa ka soocaya godadka kale waa sawirro ku xardhanaa dushooda, iyadoo sawirrada qaarkoodu ay ahaayeen sawirro xoolo daaqaya dhuldaaqsimeed ku dhex yaala doog cagaaran, fardo, webiyaal iyo xayawaano duurjoog ah. Intaa waxaa ka sii yaab badnaa, qaar ka mid ah sawirradan ayaa muujinaya qof bani aadam ah oo ku labisan dharka hawada sare lagu tago. Qaar kaloo ka mid ah sawirradan ayaa muujinaya maraakiibta hawada sare, diyaarado yaab leh iyo dad duulaya inta u dhaxaysa diyaaradaha cirka ku jira. Waxaadba moodaa magaalo casri ah. Bal maxay yihiin xiriirka ka dhexeeya sawirradan taariikhdoodu ay u laabanayso kumanaan sano ka hor iyo hawada sare? Maxaase meesha laga daliishan karaa? Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxa ay yihiin godadka Taasili, goobta ay ku yaalaan, qisada sawirrada ku xardhan dushooda, iyo weliba aragtiyaha laga bixiyay arrinkan. Magacaygu waa Maxamed Xuseen, kusoo dhawaada xalaqadeena maanta. Godadka Taasili ama sida luqadda taariikhiyada loogu yaqaano Taasili en Asjar waa silsilado buuro ah oo ku yaala bartamaha lamadegaanka koonfur bari ee Aljeeriya. In yar oo ka mid ah buurahan waxay gudaha u galayaan xuduudda Liibiya. Taagagan waxay kor u kacsan yihiin 2000 mitir in ka sareysa heerka badda, kuna fadhidaa balac dhan 50 ilaa 60 kiiloomitir, iyo dherer cabirkiisu dhan yahay 800 kiiloomitir. Guud ahaan waxay ku fadhidaa masaaxad dhan 72,000 kiiloomitir isku wareeg ah. Waxaana loo yaqaanaa kaymaha dhagaxaanta, waxayna u eg tahay magaalo hore oo ay burburisay carrada misna la isaga hayaamay. Waxayna leedahay wadooyin aad u yaryar, taa oo aan lagu mari karin ilaa iyo lug ama xayawaanada la rarto sida faraska oo kale. Halkaasi waxaa deegaansada qolo lagu magacaabo tawaariikhda, khaasatan boqortooyada Kil Ajir. Daafurka Taasili. Soo helitaanka godadka Taasili oo ah mid ka mid ah daafuradii ugu muhiimsanaa xilligan casriga, waxaa sabab u ahaa nin lagu magacaabo Jibriin Maxamed Mashaar Abibakar. Waa nin u dhashay qabiilada tawaariikhda oo ah dadka asalka halkaasi dega, balse waxaa soo helitaankii Taasili loo nisbeeyey dhulmareenkii reer Faransiis ee Henry Lot, ka oo ka faa'iidaystay aqoonta Jibriin uu u lahaa dhulkaasi, si markaasi uu u gaaro godadkan ku yaala Taasili, maadaama Jibriin uu ahaa qof aan wax qorin waxna aqrin. Dhulmareenkan wuxuu safar ku mariyey xuduudaha Aljeeriya iyo Liibiya kadib markii dhagaxyadan ay soo jiiteen dareenkiisa, taasoo kicisay hamigiisa ku aadan in uu wax badan ka ogaado. Kadib waxaa dhacday in derbiyada godadkan ku dhex yaala dhagaxyadan uu ku arkay sawirro yaab leh oo ka turjumaya nolosha iyo ilbaxnimada dad hore oo meesha ku noolaa. Marka la baaray sawirradan, khubaradu waxay soo saareen in taariikhdoodu ay u laabanayso 20 ilaa 30 kun oo sano ka hor. Sawirrada halkaasi laga helay ayaa ahaa kuwa kala duwan. Waxaana ka mid ahaa sawirro lo daaqaysa dhuldoog cagaaran, fardo, webiyo, beero iyo xayawaano duureed. Sidoo kale sawirro kale oo muujinaya xaflad diimeed iyo sanamyo waa hore la caabudi jiray. Haddii arrintu ay intaa ku ekaan lahayd, godadkan la soo helay qiimaha iyo muhiimadda ay maanta leeyihiin ma lahaadeen, sababtoo ah waxaa jira sawirro kale oo aad u muhiim ah misna aad u khatar ah oo muujinaya koox dad ah oo sita dharka lagu aado hawada sare iyo dhararka casrigan ee dumarka isticmaalaan ee ah kuwa qaaqaawan, oo ay weheliso sawirro maraakiibta hawada sare iyo diyaarado qaab yaab leh u naqshadaysan, iyo dad ku dhex dabaalanaya inta u dhaxaysa diyaaradaha dhex doolaya magaalo weyn oo aad u horumarsan. Sidoo kale waxaa jira sawirro kale oo gebi ahaanba ka duwan kuwii hore, waana sawirro noole aan bini aadamka u ekeen, taasoo shaki gelisay in goobtani ay ku noolaan jireen noolayaasha bini aadamka kaga horeeyay adduunka sida la sheego. Waxaana halkaasi laga helay tiro dhan 30 kun oo sawir, waxayna hay-adda UNESCO u diiwaan gelisay sanadii 1982 in godadka Taasili ay yihiin dhaxal caalami ah. Saynisyahanadu waxay ku wareereen inay sharaxaan jiritaanka qoraalladaas iyo sawirradaas la sawiray 20 ilaa 30 kun oo sano ka hor,
halka xilligaasi bini'aadamku uu ku jiray marxaladihii bilowga ee noloshiisa. balse su'aasha aan ilaa hadday jawaab loo helin waxay tahay, sawiradaasi ma waxay ahaayeen naqshado ay iska sawireen dadkii hore oo aan wax macno ah ku fadhin, ama waxay ka turjumaysaa ilbaxnimo halkaasi ka jirtay maalin un? Si markaa loo fasiro halxiraalahan, waxay u baahatay in la sameeyo raadin badan oo lagu helayo jawaabta u qalanta, waxayna aqoon-yahanadu ku fasireen sawiradan faalooyin kala duwan oo dabcan yaab geliyey dad badan, misna sababay khilaaf. waxaana u kala qaadaynaa 4 qayb. qaybta koowaad waxay qabaan in noolayaasha ku nool hawada sare ama meerayaasha kale ay halkan degeen ama ay soo booqan jireen. aragtidan dadka qaba ayaa ku andacoonaya in ay jiraan noolayaal caqli leh sida bini'aadamka oo kale, kuwa oo ka yimaaday meel ka baxsan meeraha dhulka, misna soo booqan jiray dhulka, xiriirna la lahaa bini'aadamkii hore. ayagoo sidoo kale tilmaamay in xiriiradaasi ay saameyn weyn ku lahaayeen horumarka aadanaha iyo agabka ay isticmaali jireen. waxayna daliishanayaan sawiradan laga helay godadka Taasili. waxaa sidoo kale laga helay sawiro muujinaya diyaaradaha hawada sare, sawiradii ay ka tageen faraacinada ee Masar, xadaaradii Maaya ee ka jirtay dhulka Beirut, sidoo kale xadaaradii Baabiliyiinta ee dhulkaasi Ciraaq. waxaan filayaa inaad filmo badan ka daawateen noolayaashan ay ugu yeeraan aliens. sawirada Taasili ayaa waxay dhiirigeliyeen aqoon-yahanka iyo qoraaga reer Switzerland ee Eric van Däniken oo qaatay aragtida noolayaashii ka iman jiray hawada sare, wuxuuna ka qoray buugaag badan. waxaa kaloo laga soo saaray dhowr filim oo documentary ah oo ku saabsan godadka Taasili iyo aragtida noolayaasha ka iman jiray hawada sare iyo xiriirka ay la lahaayeen dadkii hore ee degnaa dhulka. laakiin aragtidaasi waxaa diiday aqoon-yahano badan, inkastoo boqolaalo cadeymaha laga soo bandhigay. waxayna dhalisay su'aasha ah, haddii ay noolayaashaasi xiriir la lahaayeen dadkii hore, misna ay soo booqan jireen, maxaa hadeertan u diiday oo xiriirkii gooyey? aaway hadeertan yacni maxay u soo booqan la'yihiin? qoladan labaadna waxay qabaan sawiradan waxay u laabanaysaa dadkii degnaa magaalada dhuntay ee Atlantis. magaaladaasi waxaa markii ugu horeysay laga maqlay falsafad yaqaan Aflatoon, ka oo sheegay mar uu booqday dhulka Masar in odayaal diimeed uu meeshaasi kula kulmay ay u sheegeen in awoowayaashoodu ay ka maqli jireen in ay jirtay magaalo weyn oo ku taalay dambeedka buurta, taasoo gaartay horumar aad u weyn, balse hal mar la waayay, misna aan la ogeyn waxa keenay in la waayo. balse fikradan ayaduna waa la diiday sababtoo ah dadka ku noolaa magaalada Atlantis waxaa lagu tiriyaa in horumar aad u sareysa ay gaareen. sidee bay macquul ku tahay marka in ay heli waayeen meel kale oo ay ku sawiraan sawiradan laga helay Taasili? ma kutaabo ay waayeen oo ay ku qoraan ilbaxnimadooda? qolada saddexaad ama aragtida saddexaadna waxay leedahay sawiradan waxay u laabanaysaa ilbaxnimo iyo xadaarad ka jirtay halkaasi, taa oo gaartay horumar aad u sareysa, balse uu ku dhacay burburkaasi wuxuu doonaha sababe, misna sawiradan ay kaga tageen darbiyada godadka si markaa ay u reebaan raad loona ogaado horumarka ay gaareen. aragtida afaraad ahna midda ugu yaabka badan waxay qabaan ku safarka waqtiga. marka loo eego aragtidan waxay leedahay sawiradan waxaa sawiray dad ka yimaaday mustaqbalka, oo loola jeedo dad arkay horumarka dunida ay gaartay ayaa dib ugu laabtay 20,000 oo sano ka hor, markaana sawiray sawiradan. waan ogahay waa waxa ugu yaabka badan ee aad maqli karto. aragtida ah in waqtiga lagu safri karo waxay dhalatay kadib markii aqoon-yahanka fiisikiska ee Albert Einstein uu soo saaray aragtida nisbeynta ama relativity theory, taa oo ka dhigtay mid laga yaabo in uu qofka u safri karo mustaqbalka ama waqti la soo dhaafay. filimyo badan ayaa laga jilay, dabcan inaad aragteen ayaan filayaa. waxaan isku dayi doonaa in muuqaal aan si fudud ugu sharaxaya kasoo diyaariyo aragtida nisbeynta ama relativity theory. balse haddaan u laabano sawirada godadka Taasili iyo aragtida ku safarka waqtiga, aragtidan waxay lahaan kartaa keliya 2 dhamaad sida ay sheegayaan. mid waa in dadkii ka yimaaday mustaqbalka ay ku fashilmeen in ay noqdaan, misna ay ku xayirmeen xilligaasi, oo ay sawiradaasi kaga tageen si loo ogaado in halkaasi ay yimaadeen dad horumar aad u sareysa, yacni xaadir u ahaa, goobjoog u ahaa, ama in ay ku guuleysteen in ay ku noqdaan waqtigooda saxda ahaa, misna ay sawiradaasi kaga tageen si markaa dadka kale ay u saacido in ay ogaadaan horumarka bini'aadamku uu gaari doono waqti dhow ama waqti dheerba. ilaa maanta la joogo ma jiro jawaab cad oo lagu xaliyey arrinkan, waxayna tahay hal xiraale ay isku dayayaan inay xaliyaan aqoon-yahanada.
bal adinku maxay idin la tahay? Ma idin la tahay in aragtiyooyinkan aan soo sheegnay midoodu ay sax tahay oo ay dhacday, mise waxaad isleedihiin waa sawiro ay bedeshay cimilada qaabka ay ahaayeen misna ay sida tan u ekaysiisay, ama waxaa jira aragti kale oo aad ku kordhin kartaan? halkaasi ayaan kaga baxayaa muuqaalkan. hana ilaawin inaad fikirkiina igu la wadaagtaan commentiga. waxaan rajaynayaa inaad xalisaan hal xiraalahan. sidoo kale igula saaxiib kanalkan oo ku soo biir, muuqaalkana like garee si dad badan oo kale ay u arkaan ugana faa'iidaan. sidoo kale ha ilaawin inaad la wadaagtaan asxaabta iyo qoyskaba, waxaa laga yaabaa in laga helo qof xaliya hal xiraalahan. mahadsanidin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. amaano allah. waa inuu muuqaalka kan xiga.